sheekadeenu maanta waa Dawacyo iyo Dhurwaa. Dawacyo iyo Dhurwaa indhala aad iyo aadna u facweyn ayaa ari isugu jiray, labadooduna waxay ku heshiiyeen inay dawacadu ariga raacdo isaguna aqalka joogo oo tuugada dad iyo dugaagba leh ka ilaaliyo. iyada magaceeda waxaa la yiraahdaa Dawo, isna ciira muruqla. markay rabto inay danteeda ka qunsantana afti bay tiraahdaa iyadoo ku sasabanaysa. dawacadu inta bahal ah ee eeba abuuray bay u sir badan tahay oo dhurwaayo badan bay wax xil leh ku jirtay sida taariikhdeedu sheegayso. maalintay ariga raacdaba ri ama lex ayay dhexdiisa ku soo cuntaa, dhurwaagana hilibka wax ugama keento. markaasay qurux miira noqotay, isageena macaluul iyo foolxumo u go'ay. neefkay maalintii cuntaba dabadiisay meel dhigataa, isaguna warya wacaalo toona uma hayo sirteeda u qarsoon. dhurwaagu habeen walba markay ariga soo xerayso wuu ku yidhaahdaa dawaxaynta ii tiri kuma aaminsaniye. goortaasay waa waxaas ka sir iyo caqli badane intay ri ama lex dhegta soo qabato taabsiisaa oo dhahdaa abti tan kow dheh. markaasuu kow yidhaahdaa haddana mid kale u keentaa oo sidiioo kale ugu sheegtaa. marmar kuway markii hore u keentay bay ku soo celisaa, suu kala garan maayee markaasuu run isaga qaataa. fiidkii markay ariga xereeyaan bay iyadu ka cayaar guddaa oo faceed boodda dhisanaya u kacdaa, isaguna kobtiisa madaxa iyo minjaha isgashadaa. dawa waxay arigii cuntaba ka keliyay ka reebtay. goortay habeenkii ridii soo hoysay buu yee dawo ii tiri xaynta, markaasay inta u keentay tiri abti tan kow dheh. suuya kow isla tiibay haddana ku soo celisay oo teen tanna laba dheh. goortaasuu yee labo. siday keligeed ugu soo celcelinaysay ayay tiradii arigu ahaa ugu ebidday. suu waa wax indhala inuu dhan yahay uu u qaatay. maalintii dambe ayay ridii cuntay, waxay dhurwaagii u geysana weyday. sirteedii xeesha dheerayd bay goosatay inay wax ku qaybsato, ilaa hadday isu tagaan wara isla gafi maayaane. waxayna si aad ah uga baqaysay dhurwaayo ay isaga qaraabo ahaayeen inay dilaan. ariga dabadiisii oo dhan bay urursatay oo foodda dhulka ugu wada xabaashay. markaasay qaylo afka shubatay iyadoo leh waa wareey, arigii waa dhul cunay, arigii waa dhul cunay. dhawaaqii dawacada ayaa waxaa soo raacay dhurwaagii inaha la'aa iyo kuwo kale, iyana qaylada darteed godadkoodii ka soo fadaday. markay u yimaadeen bay weydiiyeen waxay la qaylinayso oo harka galay la soo dirsay. markaasay tee arigan la joogay dhulkaa wada liqay oo waa kuwaas tabooyinkiisii ka soo jeedaan. dhurwaayadii waxay damceen inay ariga dhulka ka soo jiijiidaan oo wax uun ka caymiyaan. mid weliba intuu daba ilkaha ku qabsaday ayuu kor ula booday, mise waa daba qur ah. goortaasay la noqotay inuu dhulku arigii cunay, dabadana nacay ama iskaba hambeeyey. dabadeed halkaasay dhurwaayadii oohin la wada fadhiisteen iyagoo ka naxsan sida bahallo barkood u cayroobeen. ugu dambayntiina kii indhaha la'aa qaracan buu la dhintay. sheekadeennuna halkaasay ku eg tahay ee hooyay aabe carruurtaada janalka sabskribe u saar si ay u helaan sheekooyin xiisa leh.